محمود أحمد ياسين وحاجرته إن deegaanka kala beeg agtiisa deegaanka gobolka soo qayb kamid ah aad kula kulanteen mas'uuliyiinta tirsan Somaliland oo kamid ahaa xildhibaan Dhakool ka soo jeeda beesha adiga xildhibaanka u tahay maxaa keenay inaad la kulantaan wafti Somaliland aad la kulanto aad kula kulanto Eerigoo gobolka soo ah marka ugu horeysa dadku meel kasta kala jiro waxa ka dhaxaya wax la yiraahdo dan oo aan marna lagu kala tagayn Dhakool ninka la yiraahdo Maxamed Axmed xildhibaanka ka soo jeeda maamulka Hargeysa waa nin wada dhalanay waa nin dhiig iyo dhalasho naga dhaxayso waa nin aan danta iyo xanuunka bahar samee iyo khayr cabduba wada leenahay dhibka halka ka dhacay oo wada danqayo wixii beesha dan ah inaan ka wada hadalo wixii beesha dan ah inaan ka wada hadalo isugu nimaadno waa arrin waajib ah wala yaqaana waa nin xildhibaan maamulka Hargeysa anuu xildhibaan Khaatumo ahay dantaan isugu nimaadno naga wada dhaxaysa oo beesha ah arrimahan kaga wada hadalay inaan loo leeyahay sidii loo horay loogu laayay beesha halka waxaan iga soo duulay Khaatumo ahaan dhiigeeda lagu banaysan beesha ayaan ugu wada hadalay nimanka beesha joogan ugu wada hadalay si aan dhiiga dadka loogu banaysan Khaatumo aan leeyahay aan dadka shacabka dhiigiisa loogu banaysan baan ku wada hadalnay arintaana cid aan u daba fariisanayno ama aan weydiinayno waxaan dan shacabka u aragno ma jirto laakiin kaliya ma lahayn wasiir Khaatumo baa la soo sheegay aad wada socoteen واشرتين شعبا كل كينو قاطي أرنت ولا بلا بورد دجالمي لكن يدوك الحقيقة تبشون هوشة هوشة وعم كسر قلي واحد شورى عيدك بحر السماء ماشي اللي راح حك واحد شورى مسؤولين سرق وبحر السماء حك واحد شورى دمتها اللي بعتها ماشي كذا عليه مسؤولين تريده وتجين وركع أسنان وكوه لينو عد كستابها بسو dadka ay mas'uuliyiinta meesha joogay bahar samee waxa lagu taageeray ama lagu calaamadeeyay amoorka lagu siiyay in ay soo duulayaan duulaanna ku yihiin nimanka hadda meesha joogay sababta darteed baan uga hadalay dadka shacabka ah in lagu banaysan dhiigooda xildhibaan waxaan ognahay in laas aan ka sugiyihiin guurtii ka timi Somaliland كنا مرقعتي بيش بحر السماء قياد لقابتي إذنكم موقف كنا Khaatumo هان ولا هذا Somaliland أو الضوء نماذج تاع محاد رأي يقول فيها هي كل مدة لا ضل لا قانيا وليه هذا قصة جد بيشاس هذا اللي بانك وطحي أريمتا هلا الله حامي هو يدي يدي هذا متشيله لما كيف نبغى تدور أو رك حال من نقول كلام ما نحن حالي كلام ولا بيرد dadku isri artisi yureeyay wadama Dhakool maxad ka hadasheen arrimo siyaasadeed baa la ka hadasheen maxad ka hadasheen Dhakool xildhibaankan Dhakool waxaan ka wada hadalay danta beesha yaa kula socday markaa Dhakool kulanteen waxay la socday nin wasiir waxaan la socday odayaal waxay la socday rag ciidamada meesha jooga ee beesha odayaal xagee ku kulanteen waxaan ku kulanay dhumay meesha la yiraahdo xagga dhexdeeda